حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن تقوذونها أهاتو لجركاقا هميقاقونها سريو قب هولسن سؤالها وان يسرع راعين إياه دبديدنا إن شاء الله وحن رجينا يا شيخنا إنه مر إسرائيلي جوابه مركزا ولا صعدا سؤالها غيبتك واد كتير وحويه قف أيام إسلامي إسلام مركانا دي بسمان أرق أنا وحن دون يا إن نعفيه محاي لجدبون سؤال شاء ودو حدان قف إسلامي عفس أو يديستي أو يديدو محاي له سؤال تعلم مدأ وانس عفني والضمر كل بقى ضمر كان يسعفيه إما كسي سؤال شو موقته لكن قريها يجا اسمه تجنه وأنا يسعفنا سامحناكم وأنا لي لكن حق قريها ما تجنه سؤال شاسي جوابته دو محين قانيسا إن قيبتها هدان كبحنا عرور تيدي أو يوروب إيجا شيء شيخ مو تهريبي كرا عرور هي درتون هذا هو التهريب مو سفر كرا ما مو تهريبي كرا سؤال شكله قبله مركي جوريجيدا كنت كنيسو هذا يشير وحى إنه درينا دي مؤذن كمساجد كأودو بقى دي ما والله مقلاه مركي يد جوريجيدا كنت كنيسو أذان كبور دعاية إقامة دي ما الله إيمانيسا وما قيميسا يد صلاة دي الظهر أما عصر أما مغرب أو قيام أو قيميسا قبله حدي أي جلافيس أما النقاب كنت كتو معادي بقى أيدي وحي جعشهاي إن لعودي أصار كلاقتمه إن أي هلب يعنتنا سمايسو والد كإن رالي قلينا علم مواد نوشيكتين ديوانا أري المهمة دينتو محاي كقبتا ما دام أيدي أنت أو كفر حيسو دي هدان صار كأي عود كاكتمه سؤال شكله الشيخ مهرد أيو أبهي ليه هاي وحلقوا إيبيا السجار أنا قلنا إنهم بانهم مشقيستو بيل كالا نقص يدو كان كاس سجارك محارم با سؤال شكله الشيخ وحا يقول بدن سهوي سلاد اللي حيدو صلادي أنك سهوي يسكا كي دحضر تميسو محاد يقول التالي الله هيد الشيخ أنيقا إيانين كيقا اسمانو أرق مدسدح بلوضة gurigana waa wada deganahay aniga ayaa diiday gurigana waan wada joognaa waanan u caroonayay diintu maxay ka qabtaa odaygii waa aniga ku furtuuraya sheekh su'aasha kale sheekh ninkayga waanu kala tagnay meherna ima siin waxaan doonayaa inaan isku noqono dadkuna waxay igu yiraahdeen iskuma noqon kartaan maxay diintu ka qabtaa sheekh sidee ayuu u gabagabaysanayaa qofka xanuunsanaya ee dhakhtarka ku jira toban dhameeya sheekh ninkayga ayaan salaada ugu taag laayahay alla maxaad igula talin lahayd sheekh allow waayo sheekhan ku wareejinaya bismillah وين سوكو كابسين وقتك إن شاء الله وقفا إذا سنو سؤالها صدح راه لا حريري حرقفتا ددك دحمرتا iyo waxa laga yeelayo markay labada qof isasaagaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inagu waaniyay saddex cisho wax ka badan inaan la kala maqnaanin ee la isaamaxo marka adigu waxaad noqotaa ka u horeeya si aad u qaadato khayriyada wa khayruhum albadi bisalaam labada qof waxa khayr badan buu ka salaanta ku bilaaba marka telefoon u dir ama la kulan salaan waan ku cafiyay marka qofkaasi haduu ku cafiyo waaye isaga ku haraysaa wixii aad la rooraysay aad ku reebto waaye uu khayr badan yahay buu nabigu kan haduu bilaabay isagu inaad guriga tagtaa waxba shardi maaha wuxuuna muhiimahoon dee in la iscafiyo la isaamaxo haddii aad u kaalintaada aad qaadatayna dee isaga markaa xilkii la jira taasi markaa doorku waa ka weeye
adigu laakiin mar walba inaad wanaagga halkii kasii wado xataa haddaanu ku cafin aad dib hawa noqonin. su-aasha sheegaysa ma u tahriibi karaa carruurtaydii oo dabadda ku maqan mee tahriibku waa xaaraan, waxaana loo tixgelinayaa inuu yahay qofka oo naftiisa dilaya. ilaahayna wuxuu walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman, ilahay uu idin naxariisanaya haystilina. qofka cadow dhex maraya ee badaha maraya ee saxaraaga maraya yulqii nafsahu ila tahluk, halaag buu isku ridaya. markaa carruurtana kala taliya, xaawalayduna arrintaasoo kale waa dee dumarku waaba cawre, arrintaasina afka soo marisaanba ma aha. marka sidii kale aad uga keeni lahayd aad uga gacan haadin lahaydun mooyaane inaad tidhaa waddan gaal baan tegaya waa xaaraan. adaanka iyo aqiimidda ruuxa dumari markay gaar isaga tukanayso salaada way u adaamaysa, markaasay sunnaysanaysa, way u aqiimaysa, markaasay faralka tukanaysa, laakiin qaylin maysa sida masaajidka looga qayliye. dee nafteediiyo dadkan la tukanayuunbay maqashiinaysaa, oo salaada raggu wixii ay leedahay unbay salaada dumarkuna leedahay ilaa uu soo arooro daliil kala saaraa. niqaabka iyo waba halkan la yidhaahdo gacmo gashiga inta ay salaada ku jirtay tukanayso way iska bixinaysaa. nebigu wuxuu uhi umirtu an asjuda calaa 7 acdum, waxaa lay faray 7 xubin inaana ka sujuudo. markaa calaancalaha iyo wejiga ayaa ku jira, intaa way bannayn doontaa inta ay tukanayso. marka ay hadhowto salaada ka baxdana way iska bixin karaysaa. su-aasha shanaad waxay ahayd rishwa lirawxaan, rawxaantii ma la laaluushi karaayo sanuunad iyo hilib iyo cadar iyo waxaa ma la siin karaa si ruuxii dumarka ahayd ee ay dhibayeen ay dee uga fuqaan ama ay u nasato ama xanuunkuba uga bo-o? mee waa xaaraan. waxaynu la il darannahay insiga laaluushkiisi. maxaad u malaynaysaa haddii jinka laaluushkiisana lagu daro? caalamka aynaan arkaynay nagaba qarsoon, waxyeeladun baa inagu sii badanaysa. marka xalku waxa weeye qofkii uu xanuunsaday, sababtan uu la xanuunsadayna waxa weeye jimankan uu laaluushaya cadaadinaya si wixii u siiyo. marka sanad iyo 2 iyo 3 markuu qolada cilaajka u tago ee laga celiye laga cadaadiye casharka iyo qur-aanka iyo dikriga ilaahay lagu wado way ka khafiifi doonaan. laakiin waa xaaraan jiman dulmi u socdaa in la laaluusho. sigaarka iyo waxa ka soo baxa waa xaaraan, cidima iskuma khilaafsana caalamka muslimiinta. waalidkaana ka waanin, adiguna ha cunin. waa inaad u muujisaa waalidka waxaan inuu yahay wax dembiya oo dad laga soo boobay oo kale, oo qofku haddii xaaraan cid laga soo qaato dee waa diidaya. marka xoolihii xaaraan tahana noocaasun wey, laakiin haddaad tidhaha iska sii yaro wehesho caadi bay ku noqonaysaa xaaraantu. marka waalidkana ka waanay, adiguna iska daa. sahwigaa igu badan salaada dhexdeeda maxaa yeelaa? waxaad aada isaga naaraysaa, ad ilaahay ka magangalaysaa shaydaanka, waxaanaad ku dadaalaysaa qalbigaaga inaad soo jeediso. ilaahayna wuxuu ku ammaanay mu'miniinta aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waa dadka marka ay tukanayaan ilaahay u soo jeeda ee aan xawilnayn ee aan sii jeedin. waxaad isku dadaalaysaa si uu kaaga go-o waxaas dad wanaagsan oo khushuucla inaad la tukato, meel wanaagsan oo fiican oo aan buuq iyo balaayo ka jirin inaad ku cibaadaysato. waxaa ka mid a had iyo jeer marka uu ku idhaahdo waxaa maad odhanin iyo weli maad akhriin iyo ku celi inaanad la sii wadin. mar haddaad ku celisa mar labaad ha ku celin, waayo mar saddexaad buu ku dhibaya, mar afraad buu ku dhibaya. markuu ku idhaahdo faatixadii maad akhriin akhri, markuu ku idhaahdo mar labaad bar baad ka tagtay mee iska daa baad leedahay, qalbigaad ka leedahay, waan dhameeyey, ha la sii wadin si aanu hore kugu sii wadin. su-aasha kale aniga iyo odayga waa kala xidhannahay, anigaana sababtu xaggayga ka timi. dee haddaad dembiga qiranaysa ka toobadkeen. kol haddii aad leedahay inaanu kulmi weyno anigii odaygaygii waxaa u sababa aniga, dembigii waad qiratay, ilaahay uga toobadkeen. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo tilmaamay ruuxa dumari markay ninkeeda gogosha kaga durugto iyadoo ka gardaran malaa'igta ilaahay inay nacdalayso. ilaahay inta waaguu baryayo dee nacdasha malaa'igta ilaahay iyo ta ilaahayna qofka muslimkahay ma qaadi karo, oo cadhada alle waxa weeye naxariistii oo aad uga fogaato. marka towbaddu waa waajib, waa inaad raalli geliso haddii aad adugu ka gardaran tahay. isaga laftiisana wixii uu kaaga gardaranya si xigmad le aad ugu sheegto. xumaantuna waxba ma tarto. labada qofe xaaska ahayna inay isxurmeeyaan iyagaa ugu mudan. markaa nusuus fara badan oo xuquuqda xaaska ka warramaysana akhriya si aa uga cibro qaadataan oo uga faa'idaystaan. su-aasha kale ninkayga wii furo inaanu isku ceshanno ayaanu doonayaa, maxaa yeelaa ama sidee loo soo ceshanayaa? ninku ii soo ceshan karaa.
wuu ku soo ceshan karaa, wuxuu odhan karaa xaaskaygii heblaaye guurkaygii hore ayaan ku soo ceshaday. waase haddii aanad dalqadda ka iibsanin, ama aan dalqaduhu dhammaanin, ama aanad cadad bixin. saddexdaa jeer kuma soo ceshan karo. marna waxaa loo baahay inaad nin kale soo marto markay dalqaduhu dhammaadeen. labada jeere kalena in lagu soo geed fadhiisto oo dee ehelkaagu ku bixiyaa loo baahan yahay. marka culimmada sii weydii wixii tafaasiila. su-aasha kale waxay sidee buu u gebagabaysanayaa qofka biyihii kari waaye bukaankaay? wuxuu u gebagabaysanayaa gacmuhu saarayaa ciidda, wejiguu marinayaa, marka labaadna uu ku celiyana gacmaha ilaa suxulladuu marinayaa. intan hore hadduu mariyu ilaa halkaa saacadda lagu xidhana way iskaga filan tahay. laakiin qofku goorta uu gebagabaysan karo waa inay biyuhu dhibayaan oo dhakhtarku kala taliyey, ama isaguba uu tijaabiyey. laakiin qof biyihii kari karaya oo isticmaali karaya, ama dadkan ag jooga ay dee u weysayn karayaan, u nadiifin karayaan, gebagabaysiga ma isticmaalayo. su-aasha dambe ninkaygu waa taariku salaade maxaa yeela, ama miyaan ka cararaa? ma shaydaanka uga tegin dawe oo shaydaanka ka soo reeb, oo waxaad kula dadaashaa siduu ilaahay ugu toobad keeni lahaa ee u tukan lahaa salaada. salaaduna waa cibaado aada iyo aada u cajiiboo nabigu uu tilmaamayba arrinta udhaxaysa gaalnimada iyo islaamnimada inay tahay. culimada qaarkoodna dee gaalbaabay ku tilmaameene, laakiin sida culimada islaamku u badan yihin waxa weeye weli xeradii islaamka inuu kusii jiro, caasi weyn uu yahay. marka haddaad xigmad isticmaasho oo aad isku dayda inaad badbaadiso, aad ku celceliso, oo haddaad wax ku dhaanta aad ku laaluushto, oo saaxiibada wanaagsan aad raaciso, oo wacdiga culimada aad u keento, oo ehelku waaniyaan, waxaa laga yaabaa inuu hagaagi doono. ilaahayna waxaan ka baryayaa ehelkeena rag iyo dumarba inta cibaadada fududaysanaysa camalku ka xumaada inuu hagaajiyo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. ilaahay inagana haynagu wada anfaco.